Waa maxay xigmadda ku jirta in qofka loogu yeero magaciisa oo saddexan? Shakhsi ahaan maxaad dareentaa marka qof uu kugu yeero magacaaga oo saddexan? Haddaba muuqaalkani waxaan ku soo qaadanayaa anigoo ka jawaabaya labada su'aalood ee aan horay kuugu soo sheegay. بشهر رمضان صوم Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waa maxay xigmadda ku jirta in qofka loogu yeero magaciisa oo saddexan? Shakhsi ahaan maxaad dareentaa marka qof uu kugu yeero magacaaga oo saddexan? Haddaba muuqaalkani waxaan ku soo qaadanayaa anigoo ka jawaabaya labada su'aalood ee aan horay kuugu soo sheegay. Shakhsi ahaan nafteyda waxaan dareemo marka leegu yeero magacayga oo saddexan iyo xigmadda ku jirta in qofka loogu yeero magaciisa oo saddexan. Aniga oo ah muuqaal diyaariyaha iyo soo tabiyaha muuqaalkani waxaan dareemaa marka ay saaxiibkay ama qof aanu bari isku fasal ahaan jirnay ama aan meel isku baranay uu iigu yeero magacayga oo saddexan, waxaan dareemaa xushmad, kalgacayl iyo kalsooni. Waxaan qadariyaa qofka iigu yeeray magacayga oo saddexan si maamuus iyo sharaf ku dheehan tahay ayaan ku iraa ama aan ugu jawaabaa nolow, saaxiib ama walaal. Waxaa jirta dadka qaar ama qof ugu yeera saaxiibkii magaciisa oo saddexan maaha runtii dabeecad u gooniya qof, waa wax ku soo dhaca mararka qaarkood dadka maskaxdooda. Haddaba xigmadda ku jirta in lagu yeero qofka magaciisa oo saddexan si codkarnimo ah, si firfircooni leh, dareen muujinaysa, waxa ay ka qayb qaadataa xiriirka saaxiibtinimo iyo kalsooni u dhaxeeya labada qof. Run ahaantii waxaa yimaada kalgacayl saa'ida iyo isdhexgal labada qof. Waxaa yimaada is-aaminaad iyo weliba in ay is-xusuustaan labada qof, dadkana isaga dhowaadaan. Waxaa dhacda mararka qaarkood in lagugu yeero magaca walaalka kaa weyn iyadoo lagugu halmaalay ama lagu moodayba muuq ahaan. Jawaabta aad bixinaysid waa mid qadarin iyo xushmad ku dheehan tahay. Waxaa weeye magacaa ha jiro adigoo ku maamuusaya qofkii walaalka kugu qalday. Haddii lagugu yeero magacaaga oo saddexan, bixi salaan qaaliya. Waxa ay noqonaysaa wax aad meel sii dhigatay. Waxa ay noqonaysaa wax lagaa bartay. Waxa ay noqonaysaa dabeecad wanaagsan oo lagugu yaqaan. Haddii qof madax kuu ah uu kugu yeero magacaaga oo saddexan, waxaa imaanaysa feejignaan aad u dheer. Markiiba jawaab degdeg ah ayaad bixinaysaa, laakiin waxa aad dareemaysaa kalsooni aada. Haddii madax aad tahay ama madax lagu yahayba, isticmaal labada jeerba in aad dadka ugu yeerto magacooda oo saddexan. Gabagabadii waxaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkani ixtiraam dadka kugu yeera magacaaga oo saddexan. Ugu yeer dadka magacooda oo saddexan. Mahadsanid. Ramadaan Kariim.